ويدنا هودا سميسان جري ويديقنا دردوران جري ويدنا هودا سميسان جري haddii aadan xishoonayn sida xildhibaan cabdullaahi goodax barre ayaa la noqdaa maangaab afkiisa iyo dhegihiisa aanu ismaqal taariikhdu waa tagtay iyo timaado aan dib u milicsanno taariikhdii tagtay 27 maarso sanadkii 2016 xildhibaan cabdullaahi goodax barre waxaa warbaahinta uu kula hadlay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya goodax oo wasiir ka soo noqday dawladda Xasan Sheekh xildhibaan qaranna ahaa waxaa shirka jiraayid ee warbaahinta uu u qabtay uu ku sheegay in madaxweynaha qaranka uu yahay qabyaaladiiste ku duulay qabiil sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ku baaqay dagaal jihaad ah oo lala galo sida uu hadalka u yiri xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gacan ku dhiile dagaal ka horinayo deegaano dadkii deganaa ay midoobeen waxaa muuqato in madaxweynihii dalka uu maanta beledweyne u fadhiyo ummadii iyo shacabkii iyo odayaashii reer hiiraan oo taariikhda Soomaaliyeed sidii lagu ogaa markii ugu fiicneed ee ay midoobeen ay ahayd in uu intuu beledweyne tagay wax anshaxa bini'aadinka ku foolxun uu ka wado uu odayaashii iyo qabaa'ilka qaybinayo uu dab iskugu dhiibayo uu rabo in muxuu ahaa meeshaas dana gaar uu ka fushado danahaas oo ay tahay inuu u eexeeyo qabiilka uu ka dhashay uu u boobo u dhaco qabaa'ilka weyn ee faraha badan ee reer hiiraan waqti abaara oo waqti xun ah in uu kharash ku bixiyo laaluush iyo kala qaybin iyo ballanqaadyo beena oo qabaa'ilku ugu ballan qaadayo jagaan idin siinaya iyo xaggaan idin siinaya oo macnaheedu wax kale aysan aynay corruption tahay yani in la yidhaahdo qabiil jagaan ku siinaya haddii asaa iyo saa yeesho waa corruption waa ayadoo lacag la bixiyey lamid tahay waa foolxumo in madaxweynihii maanta uu beledweyne u fadhiyo ummad midowday inuu kala qaybiyo waa wax aad u foolxum wilna uu dhiig ku daadsho saa ka warqabtaan shalay dhiigaa ku daatay inuu ciidan ku dalbado dad yani xuquuqdooda dariiqa u soo istaagay cidna aan abaabulina shacab dareemay in culays saaran yahay in xabad lagu furo ee dad lagu dilo taariikhda Soomaaliyeed way xusi doontaa annaguna haddaan xildhibaanada u dhashay hiiraan nahay intii awoodeenna ayaan mataqaanaa culays saaraynaa maadaama maxkamadihii waddanka aysan shaqaynayn maxkamada adduunka inay shaqeeyaan xasan sheekh nin sariigle ma aha nin u soo dhigtay in uu dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo reer hiiraan uu ku sarrifto dana siyaasadeed waaye waana la dagaalamayna uma ictiraafsana annaga inuu yahay madaxweyne waxgal ah oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyo inta aan la jihaadi karnaa la jihaadina haddii aad tahay siyaasi aanu la socon xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya maangaabnimo iyo xishood darrana ay ku dheer tahay waxaa ku dhex fashilmaysaa fagaaraha siyaasadeed ee Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu ku beegneyd 1 November sanadka 2017 xildhibaan cabdullaahi goodax barre waxa uu hadal ka duwan kii 27 maarso uu warbaahinta uu ku siiyay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya uu ka sheegay xarunta baarlamaanka hadda waxay u muuqataa in xildhibaanada qaarkood weliba kuwa xukuumadda mucaaradka ku ah in loogu talagalay inay mataqaanaa ku nafisaan oo ay fadhi ku dirir ka dhigtaan ayaad moodaa taasna sharafta iyo qiimaha baarlamaanka ayay dili doontaa hadday saa ku sii socoto mudane guddoomiye waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeed ee TV-ga ka fiirsan doonto arrintan in ay iska iloobaan wax kama jiraan ka soo qaadaan waxa xildhibaanada qaar ay meeshan ka sheegeen
ma aha kumana matalaan baarlamaanka soomaaliyeed waxay sheegeen waa fikirkooda gaarkaa waa fikir aniga ay la tahay inuu guracan yahay waa fikir ku salaysan xukuumadda in la wiiqo cadowgana oo gacan sarreeyo waa fikir ku salaysan burcadnimadii shalay aan ahaa burcad ha ii soo noqoto burcadnimadii aan meesha ka wado waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka sharafta leh intaba raggii meeshaan ka hadlay xildhibaanada ahaa ee fikirkaa aragteen ku hadlay in loo qaato sidaas inay yihiin dad raadinayo si bursi iyo xukun guracan inay wax ku maamulaan marnaba aysa ahayn in ay rabaan inay muxuu ah wax toosiyaan maxaa yeelay hadday rabaan inay wax toosiyaan mudane guddoomiye waxaa halkan ka yeertay farantigaa laga soo baxay arrintaas arrin jirta ma aha ciidankeennana ciidan faranti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aad uga liito ayay ku dhimanayeen mindoorkooduna ku dhimanaya in ciidanka la kiciyo dhambaal loo dilayaa soo kaca halkan imaada cadowga ka soo horkaca ee wax lagu raadiyo noocaas midowda guddoomiye wax baarlamaanku uu qabo ma aha waa wax shakhsiyaad kooban oo ummadda soomaaliyeed wajiyadooda yaqaanaan ay qabaan waxaa halkan ka yeertay in khudbada madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka la fasiro ee si guracan loo fasiro madaxweynaheenna waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana sharaf iyo qiimo qof leh mana aha qof ku dhawaaqa wax noocaas caqiide iyo waxaasna kama usa hadlin laakiin dadka fadhi ku-dilalka oo ilaa xalay iyo waxaa social media ka hadlahay wararkoodii in baarlamaanka noogu keeno ummadda soomaaliyeed loo baahiyo mudane guddoomiye sax ma aha ummadda soomaaliyeed iyo inta dhegaysanayso iyo baarlamaanka sharafta lane waxaan u sheegayaa dadkaa in fiiro gaara loo yeesho waxaan u baaqayaa weliba hay-adaha amniga xasaanaddu ma aha waxaan rabaan iskaga hadla